waxaan ku dhex jirnaa casharadii video editing-ka gaar ahaan qaybta la yiraahdo ama qaybteedii labaad gaar ahaan waxaan ku dhex jirnaa qaybtii labaad ee video editing-ka ee ahaa tips and tricks tabaha iyo xeeladaha editing-ka uu leeyahay ama kala shaandhaynta videoha uu leeyahay tabiis waa noocyo fara badan yihiin maanta waxaan qaadanaynaa qaybta leeyahay noise reduction sidee baa buuqa looga saari karaa kaamarada markaad videoga duubato ee sawaxan fara badan uu sawaxanka uu ka sareeyo codadkii maynka ahaa ama dhexe codkii loo baahnaa muhiimka ahaa cashirkan waxaa idin bixin doonaa anigoo ah injineer maxamed cabdullaahi maadey bismillaahi raxmaani raxiim marka aad doonaysid in clip ama video oo dhan intuu doono ha noqdo minute iyo saacadba ee codka kaa xumaaday ama uu ka buuxo sawaxan sida kaas oo kale sidee baa la yeelayaa bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti wanaagsan meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah sawaxanka waxa ka heli kara iyadoo marka laga yaabo inuu shidan yahay AC marwaxad meelaha inuu ka dhow yahay jiin dabaylo guux iyo wixii la mid ah sawaxanka noocaas markuu videoha uu ku dhex jiro professionally kuma qurux badna in sidaa lagu sii daayo maxaa la sameynayaa sida color correctionka loo saxay ayaa kana loo isticmaalaya waxa la yiraahdo noise reduction marka waxaad sameynaysaa faylkii soo qaad timelinekii keenso marka si noise reductionka loo isticmaalo maxaa la sameynayaa laba qaab baa loo sameyn karaa isla studiohan Coral Video Studio X9 Ultimate oo lagu sameyn karayaa waxaa jira studiyaal ka qurux badan ama ka fiican ama professional ah oo ah la yiraahdo audio editing studiyaasha sameeya ayaa midkood la tagaya sida audio editionka magicska acid maxaa la yiraahdaa audacity iyo wixii la mid ah maanta waxaan isticmaalaynaa marka hore audacity si aan u helno audacity wuxuu qaataa kaliya cod sidee baan codka ku heli karnaa waxaan ku heli karnaa marka hore inagoo codka kaliya la baxno oo aan niraahno right click split niraahno audio split ta haddii aan doonin waxaan oon karnaa si aan waqtiga naga lumin toos waxaan u tagi karnaa share kadibna waxaan tagnaa audio leen waxaan doonaynaa waa cod waxaan eegaynaa optionada uu na siinayo wave ayuu qaataa ayuu ku qurux badan yahay ama sida badan uu ka shaqeeyo marka wave-ka waa ka wave-an ka dhigana codka kaliya qaanad sawirka iska rabno sadarta halka waxaan ku qoraynaa wow iska qor halkee buu noo dhigayaa wuxuu dhigayaa desktopkii marka waxaad tiraahdaa start wala waa fayl aad u gaaban markiiba okay dheh ka editingkiisii iskaga celi si aad hadhow toos ugu noqoto hoosta iska dhig marka waawdii may waataa waawdii marka waawda xageen geenayna waa ilaa wave waxaan geenaynaa qaybtan audacityga furo faylkaaga soo qaad halkaa dhig marka xeer buu leeyahay xeerkaas oo ah noise-ka waxa aad doonaysid inaad ka masaxdo ayaad calaamad u sameysanaysaa ama waa select garaysanaysaa ama waa dooranaysaa waxaan doonaynaa waa inaan ka saarno noise-ka noocan oo kale ah waxaan doonaynaa noise-ka ka saarno sidee baa laga saarayaa marka hore waxaan sameysanaynaa qaybta dambe aan bilaa codka ah oo moonada ka dhigaysa ayaan tagaynaa ayaan iska tuuraynaa waxaan leenahay split kadib intaa cancel dheh mar labaad eeg codkii laba nooc buu noo noqday ama laba garab waxaan select gareynaa waa intaa noise-ka noocan oo kale naga saar baan leenahay sidee buu u saarayaa marka waa inaan tagnaa xeerkii waa inaan marnaa waa inaan tagnaa effect kadib waxaad tagaysaa noise reduction
labada qaybood buu kala qaybsan yahay marka intan aad doonaysid inaad ka saarto ama aad ka nadiifiso markay tahay waxaa la isticmaalaa get noise profile kaliya taabo kuwa kale oon usoo noqonaynaa haddana waxaad dooranaysaa dhammaan meel walba uu ku jira ka saar sidee baad ugu sheegaysaa markaa waa inaad tiraahdo double click waa inaad ku noqoto effect kadib waxaan tagaynaa noise reduction halkan optionuu noo soo dhigay haddii aan doonano ku qaadan karnaa haddii kalena noocii uu ku qurux badnaado ayaan ku qaadanayna taasoo macnaheedu yahay wuxuu leeyahay ka dhimis iyo ku daris okay wala de noisekii waxaan arkaynaa halkan de wavekii ku jiray uu ka baxay marka eeg bismillahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan meel kastoo naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamij okay codka uu isbedelay okay tusaale inta halkan ku qaadano kadib waxaa leedahay export ama save keyboard samaysanaysaa waxaad leedahay export audio wow de markan waa nooc kale wow one ka dhigo waana wave xageeba ku dhigaya desktop ku dhigaya okay de kadib inta aadan iska maxaan ku rahdaa xirin hoosta dhigo hadda wow one-kani waa kii codka nadiifka xageebaan la tagaynaa marka waxaan ku bedelanaa codkii noiska badnaa ee hore aan haysanay haddaad doontid saa usoo qaad soo ji drag and drop waxaad keentaa x9kii kadib halkaa dhigo codkaas soo qaad drag and drop waxaad dhigtaa halka musiga kadib waxaad taabataa project si sawirkii codka inay isla socdaan aad u eegtid oo codkii aad soo nadiifisay iyo sawirkii hore aad haystay waa inay labadoodaba wada socdaan synchronize ay noqdaan eeg marka bismillahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan meel kastoo naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu kusoo qaadan doono cuntooyinkii nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wala ama safe as leh si haddii aad qaldanto aad dib ugu noqon karto haddii aad doonayso videohan inaad edit ku samaysana markaad synchronize codkii sawirkii nadiifka aad isdul saarto kadib edit kaaga samayso si uusan kaaga qaldamin ama kaaga wardin waa injineer maxamed cabdullahi maaddo idin leh في أمان الله.